markale daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo israagta maqal wanaagsan oo wacan kuna soo dhawaada war wixii deegaanka iyo dalkan idinka haynay oo faahfaahsan shil lagaga wada tashanaya nidaamka maamulka maaliyadda oo soo diyaariyay xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka dhacay magaalada Jigjiga Maxamed Axmed iyo faafaynta warkan waxaa madasha shirarka ee qaryaandhoodaan ee magaalada Jigjiga ka qabsoomay kulan uu soo agaasimay xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta xafiisyada wakaaladaha iyo agaasimayaasha xafiisyada heer deegaan kaasi oo lagaga wada tashanayay nidaamka maamulka maaliyadeed iyo barnaamijka ku salaysan natiijada ee xafiisyada heer deegaan waxaana sidoo kale kulankan lagu eegayay dhaliilaha dhinaca maamulka maaliyadeed ee soo noqnoqda iyo xalkooda waxaana kulankan furay wasiirka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Cabdi sidaan la wada socono nidaamka maamulka maaliyadeed ama PFM-ka Public Financial Management-ga ee deegaanka ee asaaska u ah geedi socodka horumarka kaalinta mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha xafiisyada maaliyadaha sektarada kala duwan kaalinta shacabka iyo hirgelinta ilaalinta shuruucda maaliyadeed haddaba ujeedada kulankan wada tashiga nidaamka maamulka maaliyadeed iyo barnaamijka ku salaysan natiijada P4R-ka ama Program for Result ee xafiisyada heer deegaan oo ah sidii loo sii dardargelin lahaa doorka ay hogaamintu ka qaadanayaan adkeynta nidaamka maamulka maaliyadeed si loo sii xoojiyo hirgelinta nidaamka maareynta maaliyadeed oo tayo leh nidaamka maamulka maaliyadeed ama PFM-ku Public Financial Management waa ku sifoobay cadaalad iyo isla xisaabtan oo aan kaga midho dhalinayno yoolasha qorshaheena GTB2-ga wajigiisa labaad ee dalka iyo deegaankaba isku filaanshaheeni waan soo heshan karnaa waxaana intaasi kadib halkaasi lagu soo jeediyay warbixino ku saabsan nidaamka maamulka maaliyadaha ee xafiisyada heer deegaan isla markaasna si qoto dheer la isula gorfeynayay goldololooyinka ku iman kara nidaamka maamul ee maaliyadaha iyadoo mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay kulankan ay ka soo celinayeen su'aalo iyo talabixino gashi u noqon kara habsami u maareynta hantida waxaanu intaasi kadib aanu waraysiye la yeelanay qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii kulankan oo nooga warbixiyey kulankan iyo faa'iidooyinkiisa maanta halka waxaan u galnay tababar ama xog isasiin ay soo gudbisay xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda deegaanka Soomaalida runtii dadaal fiican ugu jirta sidii ay u sixi lahayd dhammaan financial institution-ka ama habraacyada maaliyadeed ee ka jira deegaanka taas oo marka loo eego dal ahaanna uu xafiiskeena maaliyaddu uu hormuud u yahay marka saaka waxay ku soo bandhigeen xafiiska maaliyaddu talooyin badan ama qaababka financial institution-ka loo maamulayo halbeegyada meertooyinka ay marayaan waxaad arkaysaa in si transparency ah bulshada iyo ummadda iyo shaqaalaha loogu soo bandhigo miisaaniyadda nacamsi mataqaanaa xafiis kastaba intuu miisaaniyad uu leeyahay ay xitaa shacabku u ogaadaan cadcadaanta marka xaqiiqatan xog isasiintan saaka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha deegaanku ay soo gudbiyeen wuxuu ahaa mid waxtar u leh dhammaan xafiisyada waana soo dhaweynaa waana ku dhaqmaynaa waxaan maanta ku galay shir wada tashi ah oo dhammaan hogaaminta heer deegaan ka soo qayb galeen kaasoo ay soo diyaariyay xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana laga wada hadlayay nidaamka cadcadaanta iyo magaranaysaa transparentiga ee maaliyadeed taasoo xafiiska maaliyadda ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xafiisyada kale ee wadaaga ay leeyihiin ay adeegaysiiyaan ku saabsan nidaamka ay u wada shaqeeyaan xiriirka ka dhaxeeya iyo nidaamka shaqooyinka maaliyadeed ee xafiisyada ka jirana ay u noqdaan kuwa cadcadaan iyo maamulka suuban ku salaysan marka tababarka waan soo dhaweynaynaa si fiican baan u qaadanay si fiican baan maartay oo fikrad macquul gala oo la isweydaarsaday oo dhaxalgal u noqon doono dhammaan bulshada iyo shaqooyinka la qabanayo ee khuseeya adeega maaliyadeed ee xafiisyada iyo ka guud ee ma garanaysaa xafiiska maaliyaddaba marka waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baad u mahadsan tababarkan uu fulinayay xafiiska maaliyadda oo ku saabsanayn wada tashi ku saabsan dhinaca hirgelinta reformyada kala gedisanaya maaliyadda iyo in la adkeeyo nidaamka maaliyadeed ee heer deegaan runtii waxa uu ahaa mid aad muhiim u ah waxa uu ahaa mid ku salaysan xaqiiqada jirta ee dhabta ah isla markaana waxaan odhan karaa waa mid haddii sida uu yahay ay xafiisyadu ballan qaadeen loo hirgeliyo
guulo badan keeni kara sidaan ognahay xafiiska maaliyadda nidaamka maaliyadeed nidaamkeena maaliyadeed aad buu adag yahay marka la eego assessmentiyadii kala gedisnaa ay beefa iyo sameeyeen iyo qaybo kala gedisan iyo marka laga hadlayo arrimaha maaliyadda hirgelinteeda nidaamyada maaliyadda hirgelinteeda laga hadlayo heer federaalba ammaan badan baa loo soo jeediyay hadii jeer xafiiska maaliyadda isla markaana taageeradii loo baahnaa ee lagu kobcin lahaa nidaamka maaliyadeed ee xafiisyada kala gedisan heer deegaan iyo heer degmo iyo heer gobolba xafiiska maaliyaddu aad buu dhaqangeliyey waana taaynu halkan aan maanta marayno ku soo gaadhnay baan odhan karnaa xafiisyadan waxaan u soo jeedin lahaa in nidaamkaas iyo dardaaranka wada tashiga maanta go'aanka la gaadhay siduu yahay loo hirgelin loona dhaqangeliyo kulankan oo ahaa mid soconayay muddo hal maalin ah ayaa waxaa looga gol lahaa sidii loo sii xoojin lahaa doorka ay hogaamintu ku leeyihiin maaraynta nidaamka maamul maaliyadeed oo tayo leh waxaa xarunta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga ka furmay tartanka kubadda cagta ee Coca-Cola Cup ee 15 jirada dalka Maxamed Deeqamaan iyo Babaynta Warkan dhaqdhaqaaqa ciyaaraha isboortiga dowladda Soomaalida Itoobiya ayaa ka soo kacaya sanadihii u dambeeyay kadib markii xukuumadda waqti xaadirkan ka arrimisa deegaanka ee dadaal ballaaran u gashay horumarinta ciyaaraha isboortiga deegaanka iyadoo magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka laga hirgeliyay garoonka kubadda cagta oo casri ah taasoo keentay in lagu qabto ciyaaraha heer qaran haddaba waxa magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka ka furmay tartanka kubadda cagta Coca-Cola Cup ay ku tartamayaan dhammaan ciyaartoyda kubadda cagta 15 jirada dowladda deegaaneedka iyo labada ismaal magaalada dalka furitaankii tartankana waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin heer federaal iyo heer deegaan iyadoo halkaasi kooxda Bambeyda deegaanka ay selfie aad u qurux badan ku soo mareen ugu horeyntiina waxa ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska maamulka dowladda Soomaalida Itoobiya mudane Cabdiwali Xaaji Maxamed Dalmar isagoo sheegay in xukuumadda deegaanka uu guntiga dhiisha iskaga dhigay sidii loo horumarin lahaa ciyaaraha taasoo keentay in dowladda Soomaalida Itoobiya uu martigeliyo tartanka kubadda cagta Coca-Cola Cup oo markii saddexaad la qabto sidoo kale waxa isna furitaankii tartanka kubadda cagta ka hadlay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta dalka Itoobiya Janadin Baashe isagoo amaanay dhaqdhaqaaqyada ciyaaraha isboortiga deegaanka iyo diyaargarowga ballaaran ee deegaanka sameeyay sidii uu martigelin lahaa tartanka kubadda cagta ciyaaraha heer qaran dhagan kale waxaanu wareysi la yeelnay wasiir ku-xigeenka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Soomaalida Itoobiya mudane Cabdishakuur Ismaan Khayre isagoo sheegay in ujeedada tartankani yahay isdhexgalka dhalinyarada deegaanka kasta ay ka socdo laba kooxood oo rag iyo dumar ah dhalinyaraduna mustaqbal ugu yeelan lahaayeen dhanka ciyaaraha tartanka kubadda cagta ee 15 jirada Coca-Cola Cup markii saddexaad martigeliyay dowladda Soomaalida Itoobiya ayaa ciyaartii furitaanka waxay dhex martay 15 jirada dowladda Soomaalida Itoobiya iyo 15 jirada dowladda Oromiya waxa ayna 6 iyo 1 guush ku raacday 15 jirada dowladda Soomaalida Itoobiya waxaana rajeenayaa intuu tartankani socdo in ciyaartoydu kala faa'iidaan isdhexgalka bulshada iyo xirfadooda dhanka isboortiga tartanka kubadda cagta ee Coca-Cola Cup ayaa waxa ku loolamaya 22 kooxood oo tiradoodu dhan tahay 792 ciyaartoy shir lagu daafurayay waxbarashada digriga libaad ee sociology-ga ayaa lagu qabtay jaamacadda Jigjiga Lumaan Cadde iyo Babaynta Warkan waxaa jaamacadda Jigjiga ka qabsoomay kulan lagu daafurayay waxbarashada qaybta digriga labaad ee masterta ee sociology-ga isla markaana ay kulankaasi ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadda Jigjiga xafiisyada iyo hay'adaha bahwadaagta la ah jaamacadda Jigjiga iyo waliba xubno ka socday qaar ka mid ah jaamacadaha dalkeena Itoobiya haddaba cilmigani sociology-ga qaybta masterta amaba digriga labaad oo hadda ka hor aan bixin jirin jaamacaddu ayaa dadaal ay sameysay kadib lagu soo kordhiyay jaamacadda Jigjiga haddaba intaasi kadib waxaa faahfaahin dheeraad ah naga siiyay kulankani iyo faa'iidada ay u leedahay jaamacaddu in lagu soo kordhiyo qaybta masterta amaba digriga labaad ee sociology-ga director of research-ga ee jaamacadda Jigjiga mudane Khadar Maxamuud tababarka maanta wuxuu ka mid yahay waa barnaamijyadii kala duwan ee jaamacaddu qorshaysay inay furto sanadka 2010 kaasoo ah master sociology hadda ka hor ma jirin qorshe master oo sociology oo laga baran jiray jaamacadda Jigjiga waxa loo aadi jiray meelo aad u fog laakiin waxaanu hadda sahalnay in aanu ka furno jaamacadda Jigjiga taasoo hadda laga doodayo waxyaabihii lagu baran lahaa waxbarashadan labada sano ee masterka ee sociology-ga marka waxa ka soo qayb galay xafiisyo kala duwan oo ay khusayso waaxdani iyo waliba jaamacado kala duwan oo iyaguna ka yimid dalka kuwaas oo qiimeynaya barnaamijka cusub ee la bilaabayo marka run ahaantii waxaan isleeyahay waa faa'iido aad u weyn in jaamacadda Jigjiga ay bixiso waqti xaadirkan ama ay bixin doonto sanadka 2010 waxbarashada masterka ee sociology-ga dad badan oo u helanaa waxaa jiray
sugayay in badan in la furo waxbarashadan haddana way u hirgashay taasna waxaa hirgeliyay waa jaamacadda Jigjiga dhankoodana xubnihii ka socday hay'adaha bahwadaagta la ah jaamacadda Jigjiga ayaa cadeeyay inay si aad ah ay u soo dhaweynayaan qaybta masterta ay lagu soo kordhiyay jaamacadda Jigjiga ee sociology-ga maadada sociology-ga hadda la furi doono qaybta masterka ah inay ka faa'iideysan doonaan arday fara badan ay korna u socon doonto aniga xataa waxaan ka mid ahay ardadii ka faa'iideysatay inay fursad u yeeshaan jaamacadda University ka qaato maadada sociology-ga ama loogu yeero afka Soomaaliyeed isdhexgalka bulshada iyo barashada dabeecadaheeda waxaan rajeynayaa insha Allah hadii la yiraahdo inay wax badan ka bedeli doonto bulshada guud ahaan jaamacadda Jigjiga ayaa wada dadaal xoogan oo kor loogu qaadayo tayada waxbarashada waxaana jaamacaddu ay sanadihii u dambeeyay guulo wax ku ool ay ka soo hoyisay dhanka tayada waxbarashada ee jaamacaddu ay bixiso kulan shaqaabuur loogu sameeyay dhalinyarada magaalada Fiiq ayaa ka qabsoomay magaaladaasi Cabdikaafi Axmed iyo Babaynta Warkan tababar ay qaadan hayeen iskaashatooyin laga aasaasay dhalinyarada degmada Fiiq ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee magaalada Fiiq tababarkan oo ahaa mid kor loogu qaadayay garaadka aqooneed ee iskaashatooyinka laga aasaasay dhalinyarada degmada Fiiq xarunta gobolka Eerara isla markaasna dhalinta loogu sameeyay shaqaabuur kala duwan ayaa waxa uu tababarkani qayb ka yahay dadaalka ballaaran ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kula dagaalamayso saboolnimada laguna tirtirayo fikrada ku salaysan shaxaadka iyo mashaqaysanimada tababarkan oo ay cashir ka bixinayaan khabiiro ka socday kulliyadda tababarada xirfadaha iyo farsamada ee godaya ayaa waxa tababarkan qaadan hayay dhalinyarada magaalada Fiiq iyo dhammaan tuulooyinka hoos yimaada degmadaasi waxaana dhalinyaradan inta uu tababarku socdo la barayo xirfadii ay ku shaqaysan lahaayeen iyada oo kadibna la guddoonsiin doono adduunkii lacageed furitaankii tababarkan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka gobolka Eerara iyo maamulka degmada Fiiq ayaa waxa ugu horeyn madashaasi dhalinta kula hadlay gudoomiyaha gobolka Eerara Mudan Axmed Shuun Sugulle oo khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa madashaas uga soo jeediyay waxaa la qorsheeyay xukuumadda qorsheysay hal xubin ama hal shakhsi oo shaqo la'aana oo mashaqaystanimo u fadhiya inaan la arkin tababarkan wuxuu socon doonaa muddo 6 bari ah ayuu socon doonaa runtii dhalinyarada waxaan leenahay in xarunta gobolka Eerar ee degmada Fiiq inaad tababarkan magaciisa in leeysiinayo muddada 6 bari ah aan ka keeno hadday tahay dhaqashada xoolaha casriga ah tababarkiisa wad qaadanaysaan hadday tahay calfinta xoolaha ama dhaqashada xoolaha casriga ah haddii ay tahay tababarkeeda qaadanaysaan beerashada casriga ahna wad qaadanaysaan runtii dhalinyarada waxaan leenahay in xarunta gobolka Eerar ee degmada Fiiq inaad tababarkan magaciisa in leeysiinayo muddada 6 bari ah inaad si dhiga furan leh oo anshax wanaagsan leh aad u qaadataan ayaan igula dardaarmaynaa sidoo kalena gudoomiyaha degmada Fiiq Mudane Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay dhalinyarada deegaanka u salaxday fursado dahabi ah waxa uuna ku booriyay dhalinta degmada Fiiq inay ka faa'iideystaan fursadaasi dhammaan dhalinyarada degmada Fiiq ee 20keedii qabale halkan ay wada fadhiyaan maanta dhammaantoodna shaqaabuur baa loo samaynayaa runaantiina loogu talagalay in aan deegaankeena aan lagu arag cid mashaqaysta ama gacan hoorsi meel u taagan dhammaan ay noqoto in shaqaabuur intii loo sameeyo cid walbana nolosheeda inay ku filnaato taasoo marka xukuumadda iyo xisbiga ay qorshe ka qaateen guud ahaan marka dhalinyarta waxaan kula dardaarmayaa un fursadan qaaliga ah dhalinyarta idinka horreysay in helin dad badan idinka horreeyay in helin inaad fursadan ka faa'iideysataan sidoo kalena xubna u hadlay iskaashatooyinka dhalinyarada degmada Fiiq ee qaadan hayay tababarkan ayaa qorshahan si weyn u soo dhaweeyay ugana mahad celiyay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya sida ay dhalinyarada deegaanka hiil iyo hooba ula garab taagan tahay waxayna dhankooda ballan qaadeen inay qorshahan uga faa'iideysan doonaan sidii loogu talagalay waxaan ku faraxsanahay maadaama ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ay qaateen in dhammaan ummadda deegaanka ku nool laga saaro saboolnimada waxaan haddana baranaynaa qaabkii aan uga bixi lahayn saboolnimada iyo fikirka cidhiidhiyoon ee mashaqaystanimada ah marka saas daraadeed tababarkan ay xukuumaddu noo soo dhaadhicisay annaguna waxaan diyaar u nahay inaan ka faa'iideysano maanta waxaanu aad ugu faraxsanahay 100% inay dawladdu noo qabato shir ku saabsan
ama seminar ku saabsan saan oga bixi lahayn maxaa heelay mashaqaysanimada oo lacagna loogu siin lahaa waa waxaan hore u arkin ilaahay baa nagu simay cimriganaga gaadhsiiyey in la dhaho malabkan cun marka cuntida lacag baa lagu siinhayaa wax ilaahay laga heli karo weeye cabdikaafi axmed weli telefishinka caalamiga ah ee ESTV magaalada Fiiqe warkan idinka hayno dalka waxaa guud ahaanba dalka ka socda dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo lagu sii xoojinayo howlaha dalxiiska ee dalkeena ibraahim cabdi muuse iyo fafaynta warkan waxaa guud ahaanba dalka ka socda dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo lagu sii xoojinaya howlaha dalxiiska ee dalka maadaama uu dalxiisku yahay mid kaalin libaax leh ka qaadanaya horumarka dhaqan-dhaqaale ee dalka isla markaana uu yahay mid albaabada u furaya qaabka ay dalxiisayaasha caalamku u iman lahaayeen dalka ee ay weliba uga bogan lahaayeen goobaha taariikhiga iyo aataarta qadiimiga ah ee uu dalkeennu caanka ku yahay kuwaas oo ah kuwa soo jiidanaya indhaha dalxiisayaasha caalamka waxa kaloo ay howlaha dalxiisku kaalin mugla ka qaadanayaan sida ay dalxiisayaasha caalamku u baran lahaayeen qaabka ay iskugu xidhan yihiin ay wax u wada qaybsadaan isla markaana isku qadariyaan qoomiyadaha iyo shucuubaha dalkeennu sidoo kale waxa uu sektarka dalxiisku waqti xadirkan ku howlan yahay sidii uu sii anba qaadi lahaa sii xoojinta geedi socodka dakhli iyo weliba arrimaha la xidhiidha kubcinta horumarka maanta la gaadhay ee ay qoomiyadaha iyo shucuubaha dalkeennu ku naaloonayaan wasaaradda arrimaha dhaqanka iyo dalxiiska ee dalkeenna etoobiyana waxay hadh iyo habeenba wadaa hirgelinta hadafka dalkeennu ka leeyahay howlaha dalxiiska waxaana waqti xadirkan socda dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo lagu hirgelinaya khariirada dalxiiska ee dijitaalka ah si ay dalxiisayaasha caalamku uga bogtaan goobaha dalxiiska ee dalkeenna iyagoo wadamadooda jooga waana kan baqale oo wax inooga taabanaya faa'iidada ay dalkeenna u leedahay khariirada dalxiisku የቱሪዝም ማፕ ለአንድ ሀገር ቱሪዝም እድገት በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ደግሞ ቱሪስቶች ወይ ደግሞ ጎብኚዎች ወደ ሀገር በሚመጡበት ሰዓት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ ከአንድ መዳረሻ ወደ ሌላ መዳረሻ የሚጠቁም khariirada dalxiisku waa mid faa'iido badan u leh howlaha lagu kobcinayo geedi socodka dalxiiska ee dalka sababtoo ah marka ay dalxiisayaashu u soo kicitimaan dhinaca dalka amaba ay yimaadaan dalka gudihiisa waxa ay khariirada dalxiisku ka caawinaysaa dalxiisayaasha sida ay u ogaan lahaayeen meelba meesha kale sida ay uga xigto ee ay magaalada kale uga xigto isla markaana ula socon lahaayeen jihada barbilowgeeda iyo midda bardhamaadkeedaba sidoo kale waxa ay khariirada dalxiisku kaalin lixaad leh ka qaadanaysaa sida ay dalxiisayaashu u ogaan lahaayeen goobaha dalxiiska ee uu dalkeennu leeyahay iyagoo goobahoodii ku sugan marka ay yimaadaan gudaha dalkana ay u booqanayaan waxa ay khariirada dalxiisku ka caawinaysaa sidii ay muddo gaaban gudaheeda ugu ogaan lahaayeen goobaha muhiimka ah ee ay u baahan yihiin inay tagaan sidaa darteedna waxaan odhan karnaa khariirada dalxiisku waa mid halbowlo u ah howlaha dalxiiska ee dalka ወደሚሄዱበት አቅጣጫ የት ሄዳለው የት ነው የሚያደርሰኝ ወይንም እዛ ስለሚደርሱበት አካባቢ ዲቴይል ኢንፎርሜሽን ሊኖራቸው ይገባል khariirada dalxiisku waa mid ku hagaysa oo ku tilmaamaysa jihada aad u socoto iyo meesha aad ku hakanaysaba sidoo kale waxay khariiradu ka caawinaysaa xaaladda meesha aad u socoto sida ay tahay sidaa darteed waa muhiim in khariirada sidaa wax ku fahansiinayso la helaa haddaba dalxiisayaasha caalamku aan si aan kala go' lahayn u yimaada dalkeenna Itoobiya ayaa sheegay in aad loogu baahan yahay khariirada dijitaalka ah ee dhinaca dalxiiska maadaama ay khariiradaasi aad uga caawinaysa dalxiisayaasha sidii ay u ogaan lahaayeen goobaha dalxiiska ee uu dalkeennu hodanka ku yahay iyagoo jooga wadamadooda xubinteeni saadaasha hawadana haynu eegno
dawdayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan intaas waxay noogu dhawr wixii deegaanka iyo dalka naga soo gaadhay warkayga waxaad la socodsiinaya anigoo ah Faarac Cabdi aniga asxaabta kala qayb qaatay tabinta warkan intaan dib u kulmi doona xilli tabinteena dambe ee wareed anagoo isku duuban waxaan idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh